markii dhib iyo culays qofka haysto duruuf adag isugu yimaadaan ayada ugu rajo badan baa jiroo tilmaamaya dhib laguma waaro inna maca alcusri yusran inna maca alcusri yusran culays hadduu jiro fudayd baa jira waxaa ka mid ah qofka ilaahay ka cabsada ijcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib qisadii ismaaciil iyo hooyadii markii ibraahim kaga tegey kacbada agteedun cidna deganayn sahayduna ka dhammaatay biyihiina ka dhammaadeen oo wiilkii oo naas ay nuujisanayna u haynin biyo ay siisanayna u haynin sakaraadaya ay ka soo carartay in labada safiya marwo dhexdooda kolba ordayso inay waxuun maqasho dad male cidnama degana biyo male baad male wiilkii sakaraadaya ilmihii yaraa bay fiirin weyday lacalla intaa ay maqan tahay ama inay wax soo hesho ama uu sii nafbaxo isagoo sakaraadkii ay naftu qaadaysi qofka halkaa jooga ka hor marka xaalad sidee baa haysata meeluu gaara ma leh meesha dad ma degana cunto ma haysto biyo ma haysto wehel ma haysto ilmihii yar waa sakaraadaya qofka inteen leeg buu rajo qabaa inuu wax ka qaban karo meeshuu lugta la dhacayey galgalashadii baa biyaha zamzamka noqday ceelka zamzamka halkaasuu ka soo bilowda marka maxaa sharcigu sijideeyey safiya marwo orodkay u kala gudbaysa baa sacyigii safiya marwaa hadda lanoo jideeyey qofkaas meeshaasoo kale markaad marayso haddaad xasuusato sidii ummu ismaaciil xaaladday ku jirtay ilaahay kurbadiisu uga fayday rajo weyn bay leedahay adigana kurbadaada ilahay inuu faydi karo